meel aysan ku habooneen waxa weeye laga qaado intaasan waxa weeye ognahay inta kale waxa waa ku dardaras ma rabo inaan ku dheeraano doodan amniga ah waxaan ka hadlaynaa waxay shaqo la'aanta ugu dambeyntii xildhibaan Cabdifitaax Qaasim waxaa tahay xildhibaan dhalinyaro waxay mas'uuliyad ka saaran tahay kuwa maanta leeyahay waa la faquuqay oo aad matashaa maadaama aad tahay xildhibaan golaha shacabka waa maxay ujeedkiina amba hadafkiina ku aadan amba qaabka aad doonaysaan inaad uga dhidhisaan dhibaatooyinka noocaas oo kale waxaan kaga dhidhin karnaa koow inaan hal dhinac kaga soo wada jeesano musuqmaasuqa dalka ka jira gaar ahaan dib u habeynta lagu sameynayo shaqaalaha rayidka ah iyo shaqaalaha kale ee ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan labo inaan waxa weeyaan ka wada shaqeyno amniga inaan waxa weeye ka wada shaqeyno si xasiloon loo helo kadibna waxa weeye shaqo abuur loo helo saddex dhalinyarada haddii ay jirto waxyaabo ay ka cabanayaan jihooyin ay u maraan ayaa jirto annagoo team dhalinyaro ah oo xildhibaan ah waxaan la kulannay 43 urur oo dhalinyaro ah ayaan la kulannay waxaan ku niri noo sheega dadna waxa weeye iska soo magacaabo si aan wixiini waxa weeye u gudbino madaxdii waa u gudbinay oo annaga waxa weeye iyagii ku matalna laakiin waa inaan fahanaa haddii aanay istaagin dawladnimo oo aan laga wada shaqeynin dawladnimo oo qof kastaba maalinta waxa weeyaan dawladdiisa ay tahay siyaasi aysan ahayn institution waxa weeyaan shaqo la'aantan lagama baxayo dhibaatadana haysatan lagama baxayo aan aamino dawladnimada dawladda markaas joogtana waxa waaye aan la shaqeyno oo aan iyada waxa weeyaan kula xisaabtanno social media 90 daqiiq mar kastaba waxaan ka maqalnaa dhalinyaro buunbuuninayo waxa waaye siyaasi dhalinyaro buunbuuninayo amni daro laakiin ma aragno dhalinyaro ka hadlaayo dhibka iyaga sida gaarka ah waxa waan u taawanayo siyaasigan wuu imaanayo wuu baxaya ama madaxweyne ha noqdo ama ra'iisul wasaare ha noqdo ama xildhibaan ha noqdo laakiin waxa harayo waxa weeyaan waa dawladnimada kan maanta aanaysid berito waxa weeyaan xukun uu qabanaa kan maanta aad amaanaysid berito waxa waa xilku waxa waa ka tagaya muxuu ahaa at the same time marka waxa loo baahan waxa waaye institutionka inaan kaalmeeno dawladana aan ku kaalmeeno siday kaga taqalus lahayd ama ay u yaraan lahayd lamaba dhameyn kare siday u yaraan lahayd corruptionka ka jiro waxaan arkay wasaarad kamid ah wasaarada ay ku qoran yihiin 13 darwal hal gaarin waxa waa u yaalo wixii marka haddii dawladii aysan ka helin taageero shacabkii waxyaabahaas wanaagaas la qabanaya aysan sameynin oo reformskii maanta ciidamada lagu sameeyay meelo qaarkood oo la leeyahay hal qayb 300 qoran oo 10 muxuu ahaa 30 waxa aan laga helin dawladda markii waxaasi ay sameeyso aan lagu amaanin wasiir kasta markuu yimaado darawal oo qortaa waa kaga tagaa wasaaradda absolutely wax sax maaha fiiri haddii aanan laga taqalusin waxaasi oo aan la xalin sida hadda xukuumadda ay sameysay waxa way jiri lahayn laakiin hadda amarka la bixiyay oo ra'iisul wasaaraha xukuumadda amar lagu siiyo ra'iisul wasaaraha u bixiyay waxay ahayd shaqaale lama qaadan karo waayo hoolaa socoto hool kale lama dhaxgelin karo wax shaqaalaha la qaadan karo ma lahan cidii qaadatana iyada waxa weeyaan mas'uulka ah oo shaqaale dawladeeda waxa weey rasmi ma noqon karo oo 2 sano hadda la maraya hala taageero marka dib u saxidaasi lagu sameynayo shaqaalaha dawladda qaybahooda kala duwan hala taageero si ay fursad u soo baxdo waxa xaqiiqo aad aragteen hal wiil Soomaali ah inuu qaadanayo 5 mishaar uu 5 meelood waxa weeyaan ka shaqeeyo markii la rabo in la saxane wiilkaasi inta la hareeraha ay soo istaagaan waxa weeye dawladnimo ma jirto dawladnimadii waa xun tahay waa wax runtii ayaan daraa oo dhalinyaro kalena waxa ay ku kaalmeeyaan dhalinyarada waa in musuqmaasuqa jiro maanta lala dagaalamayo ay u arkaan kansarka horumarkooda inay u arkaan ayaa waxa weeye loo baahan yahay wadada kaliya loogu bixi karana waa midaas aad oo maasantahay xildhibaan Cabdifitaax Qaasim